Assalaamu calaykum waraxmatullah. Xayawaano kala gedisan ayaa bani aadamku adeegsadaa si hawl maalmeedkooda ugu fududaado. Hadda ka hor waxaan ka soo hadlay xayawaano loo adeegsado inay cudurro soo helaan, sida jiirarkii ama dooliyada meelo Tansaaniya ka mid ah loo adeegsado in dadka qaba cudurka qaaxada ama TB-da ay soo helaan. Oo candhuufta dadka laga shakiyo ayaa la soo hordhigayaa. Jiirkaasuna isla markiiba waa uu garanayaa haddii qofkaasi cudurkii qabo. Jiirarka naftigooda waxaa kaloo lagu tababaray inay soo helaan buumbooyinka dhulka ku aasan. Waxaa kaloo caan ah adeegsiga eyda ay raboorada jooga oo mukhaadaraadka dadka ka uriya. Haddaba maanta waxaan ka hadlayaa xayawaano loo adeegsaday inay wax basaasaan ama ciidamada caawiyaan, iyadoo xayawaano kala gedisan ay hay'adaha sirdoonka ama militariga wadamada qaarkood isku dayeen inay tababaraan. Laakiin waxaa dhacda mararka qaarkood in wadamada qaarkood la soo sheego in la soo qabtay xayawaan wax basaasayay, markii dib loo raacana ay caddaato in saynisyahano wadamo kala jooga ay ku xireen xayawaanadaas qalabka ogaanaya meeluhu marayo si ay u ogaadaan meelaha ay u hijroodaan. Waa dhaweyd ayay ahayd markii saxaafadaha caalamku soo wariyeen in Norway lagu qabtay nooc nibiriga ka mid ah oo la dhaho baluuga. Nibirigaas ayaa waxaa qoorta uga xirnaa calaamad muujinaysay inuu ka yimi magaalada St. Petersburg ee Ruushka, iyadoo loo malaynayo in halkaasi lagu tababaray. Nibiriga noocan ah ayaa waxa uu ka mid yahay xayawaanada ugu caqliga badan ayna fududahay in la tababaro. Waa waxa keenay baa la yiri in Ruushku ay tababaraan xayawaanadan. Maaha markii u horeysay oo nibirigan oo kale uu Ruushku tababaray lagu arko wadamo kale. Bartamihii sagaashamaadkii ayaa Turkiga lagu arkay xayawaankan. Maadaama uusan ku noolayn badda madow ayaa waxaa la gartay inuu ka yimi dhanka Ruushka. Nibirigaas ayaa waxaa lagu arkay in ilkihiisa la simay. Arrintaas oo lagu fasiray in lagu tababarayay in miino magnad ah uu afka ku qaado, hoosta ka galo markab dagaal oo cadow leeyahay, markaana ku dhajiyo miinada markabka hoostiisa si ay hadhow ugu qaraxdo. Nibirigaas ayaa waxaa la sheegay in duufaan meesha uu ku jiray ay waxyeeshay, markaas oo uu ka baxsaday meeshii lagu tababarayay. Muddo kadib markab uu Ruushku lahaa oo dadkii tababarayay la socdaan ayaa badda bartamaheeda soo istaagay oo u yeeray nibirigii, markuu u tagayna ka haystay. Ruushka kaliya maaha ee hay'adaha sirdoonka Mareykanka ee kala duwan ayaa iyaguna xayawaano badan ku tababaray inay wax basaasaan. Waxa ugu caansanayd isku day ahaa in bisad laga dhigo basaas dhageysta codka meelaha loo diro. Barnaamijkaas ayaa waxaa hay'adda sirdoonka Mareykanka kaga baxay $20 milyan. Bisadda ayaa waxaa lagu sameynayay qalliin oo dhagteeda ayaa mikrafoon yar lagu dhex qarinayay, halka fiilo dhuubanna la dhex gelinayay dhogorteeda. Tijaabadii ugu horeysay markii qalliinka lagu sameeyay bisaddaas ayaa la soo kaxeeyay oo waxaa lagu sii daayay meel ku dhow safaaradda Soviyeetku ku lahaayeen Washington DC. Laakiin waqti yar kadib ayaa bisaddii oo laami goynaysa gaari dusha ka maray. Waxaa kaloo soo food saartay barnaamijka caqabado ay ka mid ahayd inaan bisadda la kantarooli karin oo markay gaajooto meeshii ay rabto u dhaqaaqayso. Markaas ayaa hay'adda CIA goosatay in barnaamijkaasi joojiso. Mareykanka ayaa waxa kaloo uu isku dayay in xayawaanada qaarkood u adeegsado dagaalka. Dagaalkii labaad ee adduunka oo Mareykanku la loolamayay Japan ayaa waxa ciidamada Mareykanku isku dayeen inay fiidmeerta u adeegsadaan duqeymaha. Waxa ay markaas hindiseen in wax bumbo u eg fiidmeero lagu dhex rido. Fiidmeerahaas ayaa waxaa lagu dhejiyay markaas maado dabdhalisa. Markaas ayaa diyaarad ku sii daynaysa meeshii loogu talagalay. Waxaa furmaya bokiskii fiidmeeruhu ku jireen oo halkaasi ka soo baxaya. Fiidmeertan ayaa markaa waxa ay raadsanaysaa meel ay galaan oo inta badan noqonaysa meelo ay isku qarin karaan guryaha ama dabaqyada korkeeda ah. Muddo kadib ayaa waxaa qarxaya maadadii dabdhaliska ahayd, iyadoo markaasi dab qabsanayo gurigii ama dabaqii fiidmeertu ku jirtay. Maadaama guryaha Japan badankooda ay ka samaysnaayeen alwaax, sidaas ayuu ahaa qorshaha ciidamada Mareykanku. Haddaba waxay bilaabeen markaas inay sameeyaan tijaabooyin ay rabeen inay ku ogaadaan suurtagalnimada arrintan iyo sidii loogu talagalay inay u shaqaynayso iyo in kale. Waxay ciidamada Mareykanku dhiseen dabaqyo u eg kuwa Japan ka dhisan si ay ugu tijaabiyaan duqeymaha ay la rabeen waddankaas. Waxaa kaloo waddankaas lagu tijaabiyay fiidmeerihii xambaarsanaa dabdhaliyaha, markaasoo natiijadii ay rabeen soo baxday oo guryihii qaybtooda ay gubteen. Laakiin si khalad ah fiidmeeru ku xirnaa qalabkaasi dabdhaliyaha ah ayaa baxsatay, taasoo sababtay in saldhig ciidamada cirka Mareykanku lahaayeen dab qabsado. Waqti yar kadibna ciidamada Mareykanka ayaa barnaamijkaas joojiyay oo waxa ay xoogga saareen in si toos ah magaalooyinka Japan ay u duqeeyaan. Waxaa kaloo jira xayawaano ilaa hadda ciidamada Mareykanku tababaraan oo ay ka mid tahay hombabarada. Waxay ciidamada Mareykanku tababaraan wax ka badan 85 oo ay u adeegsadaan inay kashifaan miinooyinka badda ku aasan. Laakiin waayadan dambe ayaa waxaa la soo sheegay in hay'ado badan ku mashquulsan yihiin
samaynta kaamirooyin aad u yaryar oo xasharaadka qaybtooda u eg sida duqsiga oo kale si ay wax ugu basaasaan iyaga oo aan laga shakin. intaas ayaan noogu jooga barnaamijkii maanta intii aan mar dambe kulmi doono. nabadgelyo. Assalaamu calaykum.